maamula bangi oo lacaga aad u badan ka xaday akoonna ay dad maalqabeen ahi ku lahaayeen bangi uu maamulayay ayaa si yaab leh uga badbaaday xabsigii ay ahayd inuu ku mutaysto dembiga uu ku kacay. Gilberto Pasquera waxa uu guddoomiye ka ahaa bangi ku yaala magaalo yar oo ku taala waqooyi bari dalka Talyaaniga. muddo bangigan uu haystay kadib waxa uu bilaabay inuu khasnadda bangiga ka saaro lacag uu muddo 7 sano ah marba in yar saarayay oo wadarteedu ay gaadhay 1 bilyan oo lacagta yuurada. Gilberto ayaa lacag aad u yar ka saari jiray akoonnada ay bangiga ku leeyihiin dad maalqabeen iyo dad ganacsato waaweyn ah, waxaanu lacagtaasi ku wareejin jiray akoonnada shaqaalaha iyo dadka dakhligoodu uu yar yahay ee aanay u saamaxayn inay deyn ka qaataan bangiga. muddadaasuu lacagta dadka saarayay isagu mar keliyata waxba kama uu qaadan, balse waxa uu aaminsanaa in ay tahay sida ugu fiican ee u caawin karayo dadka faqiirka ah ee aan awoodin inay lacagaha ay u baahan yihiin ka helaan bangiga, akoonnadooduna ay yihiin kuwa aanay lacag badani soo gelin. markii uu Gilberto muddo hawshan waday kadib waxa uu arkay inay lacagtii aad u badatay, haddii xisaab xidh guud oo bangiga ahi uu yimaadana ay sidaas awgeed waxa uu go'aansaday inuu isu dhiibo booliiska una qirtay inuu fal tuuga ah kula kacay bangiga muddo 7 sano ah oo lacaga yaryar ka saarayay akoonnada dadka maalqabeenka ah. Gilberto waxa uu warramay wargeys dalka Talyaaniga ka soo baxa, waxaanu sheegay waxaan mar walba aaminsanaa inkastoo ay shaqadaydu tahay inaan ilaaliyo lacagta dadku ay kaydsadaan, haddana ay sidoo kale shaqadayda ka mid tahay inaan caawiyo dadka baahan. maxkamad ku taala dalka Talyaaniga ayaa Gilberto ku heshay dembi ah inuu lacag dad sifo sharci darro ah oo akoonnadooda kaga saaray, waxaanay ku xukuntay 2 sano oo xabsi ah. laakiin maxkamaddu isla xukunkeedaas waa ay ka daba tagtay, waxaanay sheegtay in iyada oo tixgelinaysa in ninkani muddo dheer uu shaqaynayay oo aanu samayn wax qalad ah iyo inuu dembigan uu hadda galay uu isagu sheegay qirtayna. waxay maxkamaddu go'aamisay in xabsiga muddada 2 sano ahi uu noqdo mid aan dhaqangal ahayn oo looga jeeday in aanu xabsiga ku qaadan. sheekadu halkaasi kuma ay dhammaan. Gilberto si lacagtii uu saaray dib loogu celiyay dadkii lahaa waxaa lala wareegay gurigiisa. qareenkiisa oo BBC-da la hadlayna waxa kale oo uu sheegay in shaqadii laga caydhiyey, isagoo difaacayana waxa uu qareenku yidhi ninkani waxa uu doonayay inuu caawiyo dadka aan awoodi karin inay deymo ka helaan sifada caadi ahaan bangigu uu dejistay ee dadka wax lagu amaahiyo. qisadani waxa ay soo bilaabatay sannadkii 2009 markii dunida ay ka dhacday mushkiladii dhaqaale xumada ahayd, waxaana ugu horrayntii u yimi Gilberto nin muwaadin ah oo degganaa tuuladii uu bangigu ka shaqaynayay oo akoonkiisu aanu gaadhsiisnayn heer wax lagu amaahin karo, waxaanu doonayay in uu caawiyo. taas ayaa waxa ay keentay inuu markiiba bilaabo inuu akoonno ay leeyihiin ganacsato iyo dad maalqabeen ahi inuu lacaga yaryar ka soo jaro, isla markaasna uu ku shubo akoonka ninkii baahnaa, halkaasna uu ku amaahiyo wixii uu dayn doonayay, maadaama oo shuruuddii ku xidhnayd in lacagi ku jirta akoonkiisa uu isagu ka buuxiyey. ninkaas ayaa si fiican isagu dhankiisa yeelay, waxaanu guud ahaanba soo guday lacagtii akoonka loogu soo shubay. laakiin waxa ay sartu ka quruntay kadib markii uu arrintii sii waday Gilberto, isla markaasna dad badan oo aan dakhligoodu sarrayn uu wax badan sii amaahiyey, iyaguna aanay soo celin lacagtii la amaahiyey, taasoo ugu dambayntii gaadhay 1 bilyan oo yuuro.